warar soo baxaya ayaa sheegaya in dagaalmayaasha al-shabaab ay markaan maleeshiyaad fara badan ay soo buuxdhaafiyeen warar soo baxaya ayaa sheegaya in dagaalmayaasha al-shabaab ay maleeshiyaad fara badan soo buuxdhaafiyeen deegaano ka mid ah deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya sidaas waxaa sheegay taliyaha militariga qaybta 6aad Xasan Baydhabo wuxuu intaa ku daray hadalkiisa in al-shabaabka laga soo ciirsaday shabeellada dhexe galgaduud iyo qaybo ka mid ah dalkeena Soomaaliya ay soo buuxdhaafiyeen deegaanada koonfur galbeed isla markaana loo baahan yahay in culayskaas la iska dulqaado inta wuxuu ku diray hadalkiisa in shacabka Soomaaliyeed ee deegaanada koonfur galbeed iyo walba maamulkaba ay u diyaar garoobaan dagaalkaasi si al-shabaabka ka soo cararay shabeellada dhexe iyo waliba deegaanada kale ee Hiiraan iyo sidoo kale galgaduud ay iskugu soo yimaadeen dhankan ilaa koonfur galbeed Soomaaliya waxa uu sheegay in al-shabaabkaasi ay ka soo talaabeen dhanka shabeellada dhexe iyo waliba Hiiraan oo xiriirka la leeyahay gobolka Bakool iyo waliba shabeellada dhexena shabeellada hoose maadaama deegaanka Basra ay isku xirto sidoo kale inta wuxuu ku daray hadalkiisa in shabaabkii maalmaha dambe weerarka ku qaaday Sibiid Caanoole iyo waliba awdheeglana ay halkaasi duqeymaha xooggan lagu gaarsiiyay ay halkaasi ka soo carareen qaybo ka mid ah shabeellada hoosena ay tageen wuxuu intaas ku daray in loo baahan yahay in gulufka weyn ee al-shabaab ahi loogu qaadi lahaa deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya oo bilaabanayo loona baahan yahay dadkina isdiyaariyaan al-shabaab ayaa culays waaweyn oo xagga cirka iyo xagga dhulka ahi waxay ku haleeleen shabeellada dhexe Hiiraan iyo waliba galgaduud iyo waliba shabeellada hoose qaybo ka mid ah kuwaasi oo dagaal toos ah iyo waliba duqeymo lala dhacay isla markaana khasaaro xooggan halkaasi lagu gaarsiiyay saraakiil fara badan iyo waliba dagaalmayaal fara badan halkaasi looga dilay sidoo kale al-shabaab ayaa duqeymo xooggan ayna waxaa lagu eegtay gobolka Jubbada Dhexe gaar ahaan magaalada Jilib halkaasna saraakiil fara badan oo sarsare iyo waliba dagaalmayaal ayaa halkaasi ayagana loogu dilay waxaan la sheegay in Jilib in halkaasi shabaabkii joogay ay ka carareen dhanka koonfur galbeedna ay isku beeqaamiyeen sida uu sheegay taliyaha Xasan Baydhabo xaaladda koonfur galbeed ayaa markan waxay u muuqataa mid abaabul xooggan oo al-shabaab ay ka bilaabanaya maadaama al-shabaab ay halkaasi soo buuxdhaafiyeen sida hadalka loo dhigay ciidamadana waxaa la sheegay in imanka loo diyaar garoobay dagaalkaasi madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu dadaalo xooggan ka wadaa gudaha dalkeena Soomaaliya sidii al-shabaab looga saari lahaa deegaanada ay ka joogaan dalkeena Soomaaliya al-shabaab markii laga qaado dalkeena isla markaana la isku faro deegaanada ayaa dowladda Soomaaliya doonaysaa in doorasho qof iyo cad halkaasi ay ku qabato xaaladuna ay ka dhigto mid caadi ah oo nabdoon